kulanti wacan daawadayaal muuqaalkan waxaynu ku eegi doonaa xildhibaanad Ilhaan Cumar oo Koongareeska Mareykanka ka tirsan oo iyadu buuq iyo sidoo kale sawaxan looga dajiyay goob ay ka socotay xaflad uu ka qaybgalayay ama show uu hees ka qaadayay fanaanka caanka ah ee Sharma Boy mowqifkeedii ku saabsanaa in haweenku ay ilmaha iska soo ridi karaan iyo sidoo kale in labada shakhsi ee isku jinsiga ah ay isguursan karaan ayaa waxa ay keentay in xildhibaanada Koongareeska Mareykanka ka tirsan Ilhaan Cumar laga soo dejiyo ama lagu buuqo ayaa la yiri xaflad ay ka qaybgalaysay oo show heesa ah oo uu soo bandhigayay fanaanka la yiraahdo Sharma Boy muuqaalo la soo bandhigay oo malaayiin dad ah ay baraha bulshada ay u adeegsadeen ayaa waxa la arkayay iyada oo buuq lagu furayo iyo sawaxan aad u xoogan markii xafladaasi ka socotay Minnesota ay ka qayb gashay sida ay sheegtay jaridada Daily Mail ay ka soo baxda wadanka Ingiriiska majalada Newsweek ayaa waxa ay leedahay waxa laga ceeliyay goobta ama isaga baxdaba si foolxumo ah Ilhaan Cumar oo iyadu taageertay xaqa ah in haweenku ay iska soo ridi karaan ilmaha iyo sidoo kale xuquuqda ay mujtamaca dadka labada jinsi ah ama rag iyo rag inay isguursan karaan ama dumar iyo dumarku inay isguursan karaan waxaana wadcigaasi ay jirto ay ku qasabtay ayaa la yiri in goobtaasi laga dejiyo ay dadkuna ay ku buuqaan fiidiyoyada la soo bandhigay sida aad u jeedaan waa kuwa loo adeegsaday baraha bulshada sida Twitter-ka iyo sidoo kale Facebook-ga waxaana la tilmaamay in foolxumo iyo sidoo kale caro ay ka qaaday dadkaasi malaayiinta gaaraya ee iyagu buuqa ku kiciyay Ilhaan Cumar iyada oo yar ayaa waxa duruufo adag ay uga baxday dalkeedii Soomaaliya iyada iyo qoyskeedii waxa ay ka safreen Soomaaliya burburkii 1991 afar sano waxa ay ku jirtay xerada qaxootiga ee iyo tango ee u dhow magaalada Mombasa ee dalkaasi Kenya intaysan Mareykanka gaarin iyadii 6 wiil iyo gabdho la dhashay barnaamijka dib u dejinta qaxootiga ayayna ku gashay wadankaasi Mareykanka Ilhaan Cumar waxa ay taageero ballaaran ay ka heshay jamciyadaha Islaamiga ee xaq jirka iyo Ikhwaanul Muslimiin gaar ahaan iyada oo taageero ballaaran ka heshay kooxaha siyaasadda ee Xamaas iyo Ikhwaanul Muslimiin daawadayaal nala wadaaga aragtidiina fadlan subscribe noo saara muuqaalkan ama channelkeena YouTube-ka ma sanidin